marxaba Khalid ayaan ahay waxaan rabaa inaan idin dhameystiro sheekadayda waxaan ka soo degnay gaariga cabaar ayaan soconay kadib guriga ayaan galnay isbitaal oo kale ayuu ahaa meesha gabar yar ayaa jiiftay si murugo ay ku jirta ayaan u fiiriyay ani Caadil iyo Xasan iyo gabadha yar ayaan ahayn Caadil ayaa dhahay waa midaan gabadha aan ku sheegayay waxaan u baahanahay qayb ka mid ah beerka iyo hal kali inaad soo bixiso waxaan ku dhahay idinka naxariis ma leedihiin miya oo qalbi naxma qabtiin miya wuxuu igu dhahay adig wax ka galay malahan lacagtaada waad qaadanaysaa ee qaliinka samey waxaan ku dhahay hanti marabo hooyaday iyo walaashay in ay ii badbaadaan oo kaliya ayaan rabaa inta aan ku arkayna qaliinka bilow gabadha ayaan ka ag dhawaaday waliba anoo gacanta i jaraynaysa way suuxsanayd wajigeedana wuxuu u muuqday mid aad u degan anoo gacanta ka jaraynaya ayaan ku bilaabay qaliinka dhinaca midig ayaan ka jeexay kadibna kelida ayaan ka soo bixiyay aad ayay u dhiig baxday garaac wadnaheedana wuu yaraaday waxaan ku xiray qalabka neefsashada laakiin dhiigga wuxuu bilaabay si daran inuu u socdo waxaan isku dayay wax cun inaan sameeyo laakiin wadna garaaceedu wuu sii yaraaday wuuna istaagay wax kasta waan sameeyey waan awoodi waayey inaan badbaadiyo way dhimatay anoo ooynaya kuna qaylinaya idinka sababtiina ayay u dhimatay way dhimatay Caadil ayaa iigu dhahay adaa dilay maya idinka ayaa sababta lahaa gabadh aad ayay u dhiig baxday meeshana dhiig kale ma yaalo sidaas ayay u dhimatay Xasan ayaa dhahay faashil ayaa tahay sidee ayaad digtoor ku tahay waxaan ku dhahay faashil ma ihi wax kasta sababtooda idinkaa lahaa meeshana waan ka soo cararay Caadilna Xasan ayuu u dhoola cadeeyey guriga ayaan imaaday cidna ma joogto waxaan u malaynaa suuqa in ay jiraan qolkayga ayaan galay aad ayaan u ooyey waayo waxaa gacanteeda ku dhimatay gabar yar aan dembi lahayn maxaan u waafaqay laakiin shalay wax ma tarto anoo jiifa weliba oonaya ayaa fariin talkayga iigu soo dhacday wuxuuna ahaa fiidiyo uu Caadil ii soo diray fiidiyowga ayaan furay markaan arkay aad ayaan u naxay waxaa layga duubay anoo gabadha qaliinka ku samaynayo wuxuuna fiidiyowga hoostiisa ku qoray barito 3 sac subaxnimo waa inaad imaadaa si aad qaliin u samayso haddaad imaan weydana booliska ayaan kuu sheegaynaa caddaynna waan haynaa markaas ayaan ogaaday inaan dembiile ahay inaan dilaa ahay fariinta kama jawaabin waa fadhiistay aad ayaan u fikirayay mustaqbalkayga wuu burburay hooy haddii ay ogaato maxay dhihi doontaa hooy iyo walaal yaa biili doona haddaan xabsiga galo nolosheeda iyo mustaqbalkayga gacanteeda ayaan ku burburiyey marka aan cabsaday aan aamusay ayaan dabaal noqday laakiin hadda ayay tala i jirtaa saldhiga ayaan aaday waxaan dalbaday inaan arko askari lagu magacaabo Xusaam waxa uu ahaa saaxiibkay 4 sano ka hor marka uu aabahay dhimanayay ayaa iigu dambeysay marka uu aabahayna dhintay guriga inaan ka tagno ayay ahayd waayo aabadeyma fara badan ayaa lagu lahaa albaabka ayaan ku garaacay wuxuuna iigu dhahay soo gal waan u galay marka uu ii arkay wuu dhoola cadeeyey hab ayuu isiiyey wuxuuna iigu dhahay mar hore ayaa iigu kaa dambeysay hooyo iyo walaalka waran khayr ayaan ku dhahay inta uu isoo fiiriyey ayuu iigu dhahay maxaa kugu dhaxay ii sheeg wax walba ayaan u sheegay marka aan Caadil bartay iyo sid uu iigu soo dhawaanayay iyo wuxuu ii soo bandhigay iyo inuu walaasheeda iigu handaday iyo kadib waxaan sameeyey wax kasta ayaan u sheegay waliba anoo ka shalaanaya wuxuu iigu dhahay isdeji xal ayaan helaynaa waxaan ku dhahay haye wuxuu iigu dhahay fikrad ayaan ku hayaa barita waqtigii lagu balamiyey ayaad meesha aadaysaa anagana waan kaa soo dababaxaynaa waxaan isku daydaa in ay wax walba qartaan haye ayaan ku dhahay habeenkaas oo dhan ma seexanin subaxii ayaa la gaaray dharkayga ayaan soo gashtay gaari ayaan soo qaatay meesha ayaan gaaray Caadil ayaa igu dhahay waan ogaa inaad imaan doonto idinka sababtiina ayaan u imaaday wuxuu igu dhahay digtoor faashil ah ayaad tahay qaliin iska yar ayaad ku fashilmaysaa waxaan ku dhahay waxaasoo dhan sababtiina ayay ku dhacday mujrimiin ayaad tihiin Caadil ayaa igu dhahay aniga nolol adag ayaan soo maray meelaha ayaan iska fadhiisan jiray waxaan cuna xitaa ma heli jirin faashil ayaan ahaa kuliyadda caafimaadka haddaan lacag haysan lahayn ma baran lahayn lacag haddaad haysato dadka dhan ayaa ku ixtiraamaya adduunyadan waa inaad haysataa hub aad isku difaacdo waxaan ku dhahay hubka aad sheegayso ma lacag baa ha ayuu iigu dhahay lacag haddaad leedahay adduunka oo dhan ayaad milkinaysaa dadka oo dhan ayaad milkinaysaa waxaan ku dhahay waad qaldan tahay lacag waxba maahan haddaad lacag u baahan tahay si sharaf leh ayaad ku heli kartaa ee ma ahan inaad si xaaraan ah wax ku raadiso laakiin adiga ma rabtid inaad dadaasho waxaad rabtaa ilma aanan waxba galabsan in ay maalin walba dhintaan qof aad u xun oo mujrim ah ayaad tahay inta uu igu qoslay ayuu igu dhahay kaligayga ma ahan adiga xitaa dembiile ayaa tahay ma hilmaantay shalay inaad gabar yar dishay aniga ku talagalkayga ma ahayn ee adinkaa igu qasbay waxaadna igu handadeen hooyaday iyo walaashay hadda intaas inaad ii sheegto waxba kuu tari mayso haddaadan rabi lahayn mar hore ayaad go'aanka qaadan lahayd waa runtaada mar hore ayaa layga rabi inaan geesi noqdo laakiin hadda ayaan
ayaan soo nibdaaday. Marka uu hadalka uu bilaabi rabay ayaa booliskana hareereeyeen. Xusaam ayaa dhahay, wax walba afkaaga ayaad ka qiratay, wax kasta aad samaynaysay sidaasay ku dhammaadeen. wuxuu dhahay, wax dhammaaday ma jiraan. hadalkiisa ayuu dhammaystay, kadibna xabad dhawaaqeeda ayaan maqlay. waan soo cararay, waxaan ka cabsanayay ayaa dhacay. waxaan arkay askarta oo Xasan qabtay iyo meydka Nuura oo meesha yaala. Nuura ayaan ka ag dhawaaday, anoo oonaya ayaan ku dhahay, Nuura kac, waan ka xumahay, wax walbuu kugu dhacay sababteeda anigaa lahaa. ma ahayn inaan sidaas sameeyo, laakiin adiga iyo hooyo ayaan idiin cabsanayay. waan ka xumahay waxa kugu dhacay. aad ayaan u ooyey, askartii ayaa i qabtay. Xusaam ayaa ku dhahay, hadda iska daaya, anaa soo kaxeenayo. waxaan oo dhacay, adiga ayaa sababteeda lahaa, waayo gabadh aad u yar ayaad dishay. maanta walaashaada ayaa la dilay. waxaad samaysa adiga ayaa lagaa gooynayaa. haddaad mar hore iska diidi lahayd, waxaan oo dhan ma dhici lahayn. inaad is adkayso oo aad geesi noqoto ayaa lagaa rabay, laakiin dabaal ayaad noqotay. waa inaad ku qanacdaa waxaad samaysay natiijadooda. Xusaam hadalkiisa ayuu dhammaystay. wax walba uu sheegayna wuu ku saxsanaa. waan hadli waayey, wixii dhacay ayaan ka naxsanaa. saldhigga ayaa leegeeyey, waxaana leegu xukumay xabsi daa'in. hooyana iyadoo xaaladeeda aad u xun ayay ii imaaday. markaas ayaa iigu dambaysay inaan arko. waxayna igu dhahday, kaama filinaynin inaad sidaas samaynayso. wiilkayga ma tihid mujrim oo dilaa ah ayaa tahay. walaashaadana dartaada ayay u dhimatay. ebidkaygana ma ku saamaxayo. waxaan ku dhahay, hooyo wax walba dartiina ayaan u sameeyey. waxay igu dhahday, ilaahay dembi dhaaf weydiiso. haddaad anagana waa cabsan lahayd, waxaas ma samayn lahayn. wayna baxday. 2 bilood kadib waxaan maqlay geerida hooyo. 25 sano kadib ayaan xabsigay ka soo baxay, weliba anoo isbedelay, noqdayna qof aad u xun. ma ahayn digtoorkii dadaalka badnaa, ee waxaan isku bedelay mujrim oo dembiile ah. nolosheeda waxaan ku burburiyey qalad aan sameeyey iyo go'aan aan saxsanayn. sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah inaad ka fikirtaan inta aadan go'aan qaldan qaadanin. haddii aad janalka cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa like, share, subscribe inaad noo dhahdo.